gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Berbera oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera iyo sidoo kale isduwayaal ka socday wasaaradaha ka howlgala magaalada Berbera ayaa maanta kormeer hawleed ku tagay deegaanka Geeri ee dhinaca xeebta galbeed ee gobolka Saaxil kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay daadad ku soo fataheen roobab ka da'ay deegaanadaasi howlgal dawladda hoose ee Berbera ay ka fulinaysay deegaankaasi ay kormeer ku soo sameeyeen duqa iyo mas'uuliyiinta socdaalkooda ku wehelinayay waxaana ay halkaasi warbixino ku saabsan deegaanka iyo xaaladiisa ay ka dhageysteen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaankaasi waxa weeye gurmadka aanu ku simaadeen waqtigiina balaan maanta iyo maalintii horeba noo soo dejin ilaahay baa gargaar noo soo dejin cagabta noo soo dejin waa ku mahadsantiin horta halkii ayuu ka bilaabay makanasa daaska ka nisaaqay uu ka xiray uu soo raaciyay magaalada ku wareejiyay wuxuu ka qabtay ishiina way ku arkay anaguna wixii aan baqranaysaa hawshaasi si wanaagsan oo xaqiibo leh oo xilkasa oo daacadnimo ayuu ka suga shaqeeyay lambar 1 waa halku galay magaalada Geeri marka halkan waxa weeyaan wankii labana way ka sareeyaan oo ay ka yimaadeen biyo marka halkan waxaan socodsiinay ilaa iyo bad ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Maxamuud Cabdilaahi oo aadan oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Berbera iyo sidoo kale Maxamed Axmed Xuseen Faraar oo ah isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta oo sheegay in mar walba gobol ahaan ay u gurmanayaan deegaanada ay dhibaatada soo gaarsiiyaan roobabka ka da'aya deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil waxaana hadaladoodii kamid ahaa weygii hore ayuu baahid markii halkan dadka faraha badan ay ku soo fataheen tuulada Geeri ee halkan aan nimi barsaabka gobolka wafti oo hogaaminaya kamid ahaa runtii talaabooyinkii la qaaday oo ay hormuud ka yihiin gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo maxaan ku dhahay gudoomiyaha golaha deegaanka isduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta dad muxsiniina oo iyaguna fara badan oo ka qayb qaatay contributionkii wax ka qabashada hawshan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maanta waxa la joogaa oo la soo gaaray gabagabadii 7 maalmood oo moosas iyo hadii biidankeed leeyahay hawl ballaaran ay ka socotay laguna safe gareynayay dadka iyo magaaladaba waxaanu halkan u nimid maanta sida uu ka warbixiyay ninka waxa weeye cagafta waday ee moosay in maalintii horena waa la yimi oo laga warbixiyay maanta waxa loo yimi in waxa weeye wixii la qabtay in hawsha la galay run ahaantii waxa hormoodka ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka rag kale oo muxsiniin ah oo ganacsatada ka qayb qaatay qarashka ku baxay in masaajidka isaga waxaan u sidnay ambalfayerkii iyo baytarigii solarka iyo cudi iyo xarkihii waxa kale oo jira gogashii oo iyadana insha Allah taala gaariga soo qaadi doono aan soo saari doono gaari soo qaadi karo baawar yar baan wadanay run ahaantii waxa weeye ma aha markii ugu horeysay ay mas'uuliyiinta degmada ama xildhibaanadu u gurmadaan dadkooda duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxa uu sheegay in ay golaha deegaanka mar walba diyaar u yihiin sidii ay ugu noqon lahaayeen bulshadii soo dooratay isla markaasina ay ula wadaagi lahaayeen hadba xaaladda soo wajahda dib iyo dheefba waxaana hadaladiisii kamid ahaa insaan baynu nahay nabadana ma xamilo gaajidana ma xamilo waxaan in badan ka gurmanay abaaro waxaan mar dambe labaad ka gurmanay hadana raxmadii daaday oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadii waxbatuna ku yeelin halkan tacab badan baa galay waxaan marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee wax ka soo dhiibay ee ku soo taakulay dadkooda walaalaha tabaalaysan in Ilaahay meel ka khayr badan iyo mid ka khayr badan ba Ilaahay u siiyo marka labaad waxaan habeen maalin mas'uuliyadda iyo xilka ay isaga saaraan golaha deegaanku bulshadii iyo shacbigii soo doortay waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa xildhibaan Maxamed Cabdilaahi Bariid oo runtii aan oran karo galbeedba hadii la yiraahdo dul iyo hoosba hadii wax yar ka dhacaan iyo hadii wax kasta ay ku soo kordhaanba qof qura ee ka gurmada ama jeebkiisa ha noqoto ama hayntiisa ha noqoto ama ta ummaddu ay leedahay ha noqotee ka gurmada qeyladhaantan isaga soo gaarsiiyay gobolka anaguna saasaan kaga ajiibnay intii awoodayada ay wax ka qaban karno wixii aan qabanayna waan qabanay wixii damana wixii aan la qaban karno insha Allah ta'ala ayaanu ka qaban doonaa dawladda hoose ee Berbera ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanayd sidii ay daadka uga muusi lahayd magaalada Geeri oo iyadu ku taala dhul biyo mareena kuwaas oo ay daadad khasaare soo gaarsiiyeen toddobaadadii u dambeeyay
mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera